ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu sheegay in shaqada laga joojiyo shaqaalaha dawladda ee aan gudan shaqadooda qaran. wariyaha telefishinka RTN magaalada Muqdisho Maxamed Xuseen Axmed Daacad ayaa faafaynta warkaasi Muqdisho ka soo diray. xasan cali khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo maanta ka qayb galay munaasabad lagu daafuriyay tirakoobka shaqaalaha dawladda ayaa waxa uu sheegay in muhiim tahay in la ogaado shaqaalaha rasmiga ah ee dawladda Soomaaliya u shaqeeya waxa uu amray wasaaradaha dalka in shaqo joojin lagu sameeyo shaqaalaha aan shaqeynin kuna shaqeeya mushaarka sidoo kale waxa uu amar buuxa siiyay hantidhowraha guud ee qaranka kaas oo ka dalbaday inuu baaritaan ku sameyn karo xafiisyada dawladda si looga hortago musuqmaasuqa. tirakoobku waa arrin aasaas u ah waxaa kaloo muhiim ah inay kala soocan yihiin qofka dawladda u shaqeeya oo mushaar ka qaata iyo qofka mushaar dawladda ka qaata dawladdan aan u shaqeynin waa inuu farqi u dhaxeeyaa waa inaadan aqbalinina in lagu tunto xuquuqda ummadda Soomaaliyeed mushaarka la siiyo dadka u shaqeeya dawladda madax iyo shaqaale caadiyaba waxa laga soo qaadaa shacab Soomaaliyeed waa canshuur laga soo qaaday qof Soomaaliyeed oo u bixiyay inuu ku taakuleeyo dalkiisa qofkaasi waxa uu rabaa laba arrin kow in canshuurtaas lagu guto waajibkii loogu tala galay iyadoo macnaheedu ay tahay ammaanadii naloo dhiibay inaan uga soo baxno sida ay tahay labo in loogu qabto adeegyo kala duwan oo ay u baahan yihiin dadkaasi iyo dhammaan bulshadoodii haddii marka canshuurtii la soo qaaday aan mushaar ku siino dad aan dawladda u shaqaynin soo xaqdarro ma aha haddii aad fadhidaan xafiisyo ay kuraasta dhinaciinana ka maqan yihiin dad aan shaqada imaan bil walbana mushaar la siiyo oo aadan soo sheegina soo dambiilayaal ma ihdina waa in la abaal mariyaa kuwa dawladda u shaqeeya waa in lala xisaabtamaa qof walba oo annaga laga mid ah oo wasiirku ugu horeeyo anigu aan ugu horeeyo ceeb ma aha in la isla xisaabtamo sidaas daraaddeed ayuu hantidhowrka guud ee qaranku u igman yahay inuu tago wasaarad walba oo weliba aan ku dhiirigelinayo wax walba oo la bilaabayo inuu ka bilaabo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha aan ku dhiirigelinayo tirakoobka aad sameynaysiin kaalay ku bilaabo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha. hadalka xasan cali khayre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu ku soo beegmayaa xilli wasaaradaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya ka shaqeeyaan shaqaale fara badan laakiin aan lahayn tirada rasmiga ah